salaadu waa waajib jamaaca inaad ku gudataa baana fiican oo jamaacaadka xaadirto inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahay haddii aynu idhaahno ummadoo dhammi ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye inta ugu yara lagu noolaan karo un markaad soo qabato fadhiiso oo dadku marka ayuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handasa la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhami waa adduunka faanigaa bay ku tacalluqaan haye natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqora ah dhammaanteed jaahilka aan nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin yacni waa dadka ku dul nool parasites baa soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxa loo baahan yahay wuxuu weeyaan waaciddu lahum mastata'tum min quwatin wa min ribaat alkhayl turhibuna biha caduwa allahi wa caduwakum baa layidhi wakayfa tucud haddaad jahl iyo baqa idin wada hayo kayfa tucud haddaad jahl iyo faqri uu ku wada hayo saasha isweydiinta le waxa weeyaan marka nooca haddii loo noolaado xanuunkaa faafayo cidda wayse loo heli maayo jahligaa faafayo cid nolosha horu maraysa la heli maayo noloshoo dhan baa aasmaysa muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani sida qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal mas'aladaa u dhegtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kaloo ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labada mas'ale ma isla fahmi karaysa shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo milyaneera ayuu hadduu hilib yaroo shiilan cunayso odhan jiray armaa kani kii aakhire ku weydaariya idan may ahayn wax la'aan ee waxay iyadoo gacantooda ku jirtaanay qiimo badan u samaynaynin innaga laba mashkila meesha taalla dad badh yidhi aakhiraan ku soconnaa adduunkaba uma baahnin dabeetana un gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tidhi adduunyaan raadacaynaynaa dabeetana adduunkaanu iska bidhbidhsanaynaa meelaha duulduul oo kolba siyaaxad tag iyo daar yaroo cagaaran iyo intaa noloshaba intaa moodo aakhira ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay ahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan lee muntajiin ah markay noqoto conceptionna waxay ahaayeen dadka ugu yar zuhdiga xaqiiqigiina waa kaa culamaa ilxadiid rag ka mid ah oo waaweyn oo salafkiyaba waxay odhan jireen nin ka midaba wuxuu yidhi ardadiisi isagoo la dardaarmaya waryaadheen anigu walaalahay baan ku kor noolo wax la cunaa buu yidhi idinka waxaan idinkula talinaya inay xoogsataan buu leeyay intaa yartiina xoola dhaqda waa nin muxadisiinta waaweyn ee la yaqaano ka mid ah muxadisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata amase xadiidka ku xoogsada muxadisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin deetana waxay odhan jireen idiin sheegi mayna xadiidka idinka wax na siiya mooyaane marka lacag la siiyo ayayna xadiidka sheegi jireen marka ahlulxadiidku markay ka warramayaan raggay maagaan bay ku jiraan oo yidhahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto walaa professor baan ahay walaa ustaad baan ahay walaa waxa kan baan ahay malihi ma banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado cidina aanay u manno sheegan markaa laa dawlad walaa shicib walaa qofna aanu u manno sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheego haddana isagu inuu dadka u manno sheegto oo cilmigiisa uu aakhiro iyo ajar ku helo mu'minka xaqa ahi markaa waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sarreeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo haddaa see la odhanaya xoolaha badana la shaqaynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacaynayna waxaynoo dhisaynu lahanay waayo waxaynu soo saarrayba waynu cun ama muntajiin baynan ahayn ama mustahlikiin baynu nahay labadubana waa waxaan fiicnay muntij noqo mustahlikna ha noqonin wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso u horumariso westrankayn maanta joogna carruurteenna islamic school baynu u lahanay maxaynu ugu weynay ama waxbayna soo saarin oo caydha aynugu fillaatay ama wixii aynu soo saarraynu liqnayo waa la boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganay marka waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahanyay waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nebigu u dirayay yaa lahaa yuhuud baa lahay yuhuuddaa la booba nolosha la xoogsada lalaha meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cawf dulluuna cala suuq waa suuq lyahuud suuqi banu qaynuqaac baa la geeyey meel kale lama geynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii la ii dhiibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bilaakhira adduunku aakhira xidhiidhku la leeya waa maxay xidhiidhku la leeya waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa ariiqii aakhira loo marayey hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aad noloshaada adigu daberi kartaa cibaadaday ka mid tahay baryadoo aad iska dayso aan sooshiyaal wax weydiisanin cibaadaday ka mid tahay inaad isku fillataa cibaadaday ka mid tahay qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahay qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay in marka tusaale lasoo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatee caydha ku nooli diinyariday ka mid tahay bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diinyari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxaan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin
qalbigaaga geli adduunkuna ha noqdo طريق aakhire lagu gaadho wallahu a'lamu billahi tawfiiq. Assalamu alaykum.